qodobka sideedaad wuxuu ka hadlayaa muwaadinka maxaad u baahan tahay haddaa waxaa idin sheegay meeshan waxaa jirta wax la yidhahdo Soomaaliya iyo waxaa jira ummad ah iyo waxaa jira muwaadin yaa muwaadin ah qof alla qofkii degan oo halkan oo Soomaaliya oo haysta jinsiyadda Soomaaliya ma aha jinsiyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haysta ayaa ah muwaadin laakiin ina adeerkay oo degan Ethiopia Soomaali galbeed oo haysta jinsiyadda Ethiopia ma aha citizen waa ummad Soomaalidu ka mid ah hadduu rabo inuu qaato inuu yimaado halkan ugu yaraan 2 sano deganaada canshuur bixin noqda qofka ajnabiga 7 sano ayuu joogayaa laakiin asaga 2 sano ayaa lagu siinayaa maadaama uu dhiig Soomaali leeyahay oo amnigiisa marka waa laga maarmaan sharcigii hore u jiray oo muwaadiniinta ahaa waxa weeyaan sharci la yiraahdo afkan qalad lagu yiraahdo sanguinis dhiig raac dhiig Soomaali raaca sida yahuudda maarta hooyadooda ay u raacaan laakiin dhiig Soomaali raaca qofkaas dhiig Soomaali ku jira waxa dhiig raac waa sanguinis marka saa daraadeed hadda waxaan u baahannahay duruufo yimid dagaal baa dhacay waa la qaxay baasaboora la haystaa dadka qaxay banaanka u baxay ikhtiyaarkooda kuma bixin duruufo qasbay marka waxaan ogolaanay 2 jinsiyadood inuu qof isku haysan karo waxa suurtagal karta jinsiyad kale oo maxaa la yiraahdaa ajnabiga ah inaysan ogoleen laakiin anaga waa u ogolaanaynaa maadaama uu yahay qof naga tagay haddana loo baahay inuu soo noqdo markii la dooday waxay noqotay marka dadkii maadaama ay qasab ahayd ay marka duruufo kicii ay daraadu ay u kicin in la soo celiyo marka sharcigan in wax laga bedelo u baahan yahay mabaadi'da badanaa meesha ku yaalaan haddii maalin haddii aad fursad heshaa hataa diyaar baan oo inaan cashir ka bixiyo waa muhiim sharcigaasi muwaadinka ah iyo qaldaadka aan soo galnay 60kii ilaa hadda inaan maaragtaa inaan isa saxno waa laga maarmaan sharcigaas in laga hadlo si fiican qoto dheer looga la tuujiyo mabaadi'da badankeeda waa ku yaalaan kaliya waxa way sidee loo federaaleynayaa iyo fahmada inaan sameeyno maxaa la dhahaa inaan fahmo aan la ka fahmi daroon marka kan waa laga maarmaan waa shaqo taala waa la dhameystiri karaa wax dhibaato ah ma jiraan waxa way laakiin dastuurka maxayiraay qodobadan oo dhan waxa way si sahal ah dhow looga gudbi karaa idin tusaa laakiin waa wax loo baahan yahay oo sheekadaani waa waxaa heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay labo waxaa garab soconaya hadda inta meesha kuma taalo mar alla markii citizenshipka laga hadlayo waa laga maarmaan inuu barbar socdo laba sharci kale waxaa weeyaan kan doorashooyinka iyo kan axsaab siyaasiga waayo mar haddii shacbigii aad heshay muwaadinkii aad heshay wuxuu u baahan yahay in muwaadinkii wax doorto lana doorto dad u maamulo rabaa sharcigii lagu dooran lahaa lagu sameeyo waa loo baahan yahay يعني ميمسكي مرتا يعني هيئتي لو قد بلهان يعني مواطنك انتو جوغا تلدي حكمكن حقي تالا كابد بالو باي او كو غاري كارو حكم كو قفسن كارو مواطنك كابد كاس waxaa la yiraahdaa xisbi siyaasadeed axsaab siyaasadeed waa kaabadki oo muwaadinka uu ka gaadhay ilaa xisbi siyaasi waxay u tartamayaan waxa waay inay talada dalka qabsadaan marka saa daraadda waa kaabadki oo muwaadinka uu qabsan lahaa marka waa ku hoos jiraan kuwaas waa u baahan yihiin inay garab socdaan